halkan marka waxaan idinku yimid maanta inaan iswaraysanno oo isxog waraysanno annaga wixii aad noo dirteen oo ahaa duruufihiinna inaan meel saarno oo ay kow ka ahayd mushaharaadka raashinka oo taxano ah oo aanan ahayn sida taqaaniin wax talantaali ah ama bildhaaf aanan ahayn oo aad noqotaan dee saraakiil sugta ama ciidan suga guud ahaan mushaharaadkooda xuquuqdooda waqtigii loogu talagalay inay qaataan waajibaadkaas yaadna saarteen oo waxaad tidhahdeen annagana waa ka soo bixinaa inaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ka dulqaadno waxaa garaadaha u sidataan darajooyinka waxaad u sidataan inaad dalka ka xoreysaan khawaarijtan iyo cid kasta oo soo hunguriyeysa dalkeenna taas weeye waxa dalkan aan uga xoreyn karno qolooyinka khawaarijta ah oo ummadeenna iyo dalkeenna iyo dowladnimadeenna iyo sharafkeenna aan doonaynin oo maalin walbaba isku dayaaya waxa ka soo haray waxa weeye argagixisanimo yaa ka soo hartay inay miino iyo bambaano meel soo dhigaan oo la yiraahdo ciidamadii qalabka sida aaway maxaa ku dhacay maxay hawshooda u qabsan waayeen oo shacabka iyo idinka la iska kiil hor keeno shacabka Soomaaliyeed waa idin garab taagan yihiin waa idin heelan yihiin diyaar ayay idin yihiin idinku se ma difaaci kartaan caruurteena ma difaaci kartaan difaacina madaxweyne Soomaaliyana waxa haysta cadow aad u fara badan mid dibadeed iyo mid guda labadaba waa haystaan midka dibadda Soomaaliya inay istaagto lama rabo sidaan inaad ku jirtaan ayaa la rabaa maxaa yeelay meesha aan ku naalno nimcada aan haysanno noloma ogola